بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا مننت علينا بالبداية فمن علينا بالتمام. وانيغو سيد علي أبو بكر ماستر سيدك مر لباد waxaa kusoo dhawaataan barashada cilmiga kombiyuutarka qaybtiisa koowaad part 1 asaasiyaadka kombiyuutarka. maanta waxaan aad iyo aad u saari doonaa ana baran doonaa asaasiyaadka kombiyuutarka. marka sidaan wada ogsoonahay cilmi kasta meel kasta aad joogtid markii aad barahaysid waxaa aasaas u ah inaad marka koowaad soo baratid basiskiisa. basisku waxa waaye aasaaska waaye. marka tusaale guryaha markii la dhisaayo koobidhimo waa inaa lasoo dhisaa aasaaska koowaad. markii guriga aasaaskiisa oo tooso ayaa inta kale la dhisi karaa, guri qurux badan kusoo baxa, lagu intifaaci karaa. sidaa darteed marka waxaan aad iyo aad oo koorskan haddana u anfacaa ardayda cilmiga IT-da baranayso, qofkaan aan baranaynin, dadka oo shaqeeyo, dad kombiyuutarada ku shaqeeyo, qof kasta kombiyuutar baahi u qowran. يعني بيسكان كواد وحواي وحويها مهم ويان. marka si toos haddii aan u galno waxaanu dhahnay basic computer marka waxaan ka sameynaa package of basic computer package ka marka waa 5 xabo. package kan waxaan soo aruurinay 5 xabo oo basic u naga karto qofka amba uu ka bilaabi karo amba muhiim u ah amba baahi oo uu qabo. maxay kala yihiin marka MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint. MS waxaa lagu soo gaabiyay Microsoft, يعني Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access and Microsoft PowerPoint. marka kuwan maxay yihiin, maxaa loo isticmaalaa? Microsoft Windows waxaa loo isticmaalaa midna ogow tartiib ayaan u baran doonaa mid kastaba iyadoo dhammaystiran si deeply ah oo faahfaahsan ayaan u baran doonaa. marka hadda waxaa ka qaadataa kaliya concept. MS Windows waxaan dhahnay waxa waaye Windows waxa waaye mobilka wuxuu leeyahay Windows, computerka wuxuu leeyahay Windows. Windows waxa waxyaabaha oo computer ku shaqeeyo amba mobilka kale oo ku shaqeeyo. mobilka Windows la'aan ma shaqeynayo. marka sidaa darteed markii la start gareeyo computerka ilaa laga damiyahay activity-ga kala socdo oo waxyaabo lagu shaqeeyo meelaha gudumo shaqeeyo waxaa la isticmaalaa Windows ayaa la isticmaalaa. intaas ku soo gaabi MS Word maxaa loo isticmaalaa? Microsoft Word waxaa loo isticmaalaa documentation, sida loogu qoro dokumentiyada. haddii ay noqoto nootaayo, haddii ay noqoto news, haddii ay noqoto warqad aa u codsaysid shaqo, haddii ay noqoto warqadda xafiis u qoraysid, waxaasoo dhan dokumentiyada buugaagta kaleta. Word wax qoritaan waa asaga wax allaal wax qoritaan inaa haddii computerka inaad isticmaasho daartid waa inaa focus ka saartid Word. MS Word waxaa ku soo MS Excel. MS Excel maxaa waa barnaamij xisaabeed, yani wax allaalo wixii oo xisaab hayo quseeya, badeeca xisaabi, attendance iskuulaadka xisaabi, maxay ahayto mushaaraadka xisaabi, waxaasoo dhan wixii xisaabaad hoosgelayo oo dhan businesska xoog haba u badnee. markii aad rabtid inaad computerka baahi ugu qabto ama isticmaashid waa inaad xooga saartaa MS Excel, Microsoft Excel. qodobka afraad MS Access muxuu yahay? marka MS Access waxa waaye asna database, waa waxyaabaha meelaha lagu keydiyo sida xogta iskuulka oo kaleeta, ardayda xogtiisa intee lagu keydiyaa, dowladda muwaadiniinta xogteeda intee ku keydisaa, database-ka xawaaladahan lacagahan laga soo kala dardirayo xogta inta ku jira maxay xawaalada oo iska tegaysaa. markaad tagtid waxaa lagu leeyahay magacaaga sheeg, waa sheegaysaa, waa taalaama kuma taraday ku taala oo lagu siiyaa xogtaas intee ku jirtaa. marka database marka sidee marka uu isticmaaleynaa sana access-ka. waxaana soo haray qodobka shanaad ugu dambeeya PowerPoint waa presentation program. waxaa isticmaala badanaa dadka akademiyada ah, jaamacadaha aad uu xoog badan yahay, seminaarada oo kaleeta markii la jeediyahay, projectorka idin shidan, waxyaaba lagu isticmaalaa isna PowerPoint allah. 5tan xabo waxaan u aragnaa marka 5 xabo oo muhiim ah: Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint. mid kasta waana baran doonaa asigoo faahfaahsan ayaan baran doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. fadlan la soco qaybta xigto.